baan xamlaasiin maxamed barkhalle waxaan xaggan uga mahadnaqayaa maanta waxaan joognaa waa magaaladii xarara dugsigii secondary school Aadan Bil secondary school waxaan uga mahadnaqaynaa xaggan qurbi joogta walaalaha Sweden oo ugu deeqday dugsigan inay u soo geliso biyagelin aad u ballaaran ayaan ugu mahadnaqaynaa biyagelinta iyo waliba leerkii solarka ugu deeqday dugsigan school Aadan Bil secondary school aad ayaad u mahadsantihiin baan horta leenahay waxaan kaloo u mahadnaqaynaa xaggan uga mahadnaqaynaa qurbi joogta kale iyagana ku deeqay qurbi joogta kale ee ku deeqday furtay iskoolkan ayaan u mahadnaqaynaa iyagana waxay kusoo biiriyeen kombiyuutarada ayay kusoo biiriyeen aad ayaad u mahadsantihiin baan leenahay waxaan xaggan ka sheegaynaa kulley bulshada waxyaabaha bulshada ugu horeysa ay bulshadu ay kusoo kici karto waxaa ka mid ah ama magaalo lagu magaaleyn karo waa biyihii iyo caafimaadkii waxbarashadii waxaan leenahay qurbi joogta xaggaa joogta biyagelintan maanta aad noo soo samayseen waxay ka mid tahay marka waxay ka qaadanaysaa door muhiim ayay ka qaadanaysaa adeegii bulshada leerku kadaalika isagna adeegii bulshada kaalin muhiim ayuu ka qaadanayaa marka waxaan leeyahay aad ayaad u mahadsantihiin waxqabadka kulley aad qabanaysaana kulley waxaa ugu muhiimsan wax muuqda inaad qabataan waxyaabahan maanta aad qabateenna waa wax muuqda aad ayaan iigu mahadnaqaynaa haddii aan nahay mudanayaashii golaha deegaanka ee degmada Xariirad degmadan Saylac gaar ahaan ka soo baxay Xariirad aad ayaad u mahadsantihiin kulley waxaan aad qabateen noo qabateen waa wixii annagu inaan qabano ay dadku ay naga sugayeen weeyaan maadaama oo idinku maanta aad qabateen ininka aad baan iigu mahadnaqaynaa annaguna insha Allah waxaan rajaynaynaa wixii ka dhiman inaan dawlad ahaan wixii ka dhiman annaguna inaan haddii Ilaahay dhaaf buuxino inkuna waxaan maanta aad qabateen waan ognahay waa waxaan annagu aan qaban lahayn aad ayaan iigu mahadnaqaynaa waayo waxaad buuxiseen kaalin annagu aan buuxin lahayn ayaad maanta naga buuxiseen oo waxaan naloo doortay waxyaabahaas oo kale ay ahayd maadaama oo inku maanta aad qabateen magacaygu waa Dhabar Daahir Maydhane waxaan marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqaynaa Ilaahay baa mahad iskale marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa qurbi joogta beesha Ciise meel kasta daafaha dunida ka nooshahay ayaan u mahadnaqaynaa gaar ahaan walaalaha Sweden waxay noo qabteen halkan saaka munaasabadan iskugu imanay waxay noo qabteen dugsiga sare ee Xariirad School Secondary ayay noo galiyeen koronto iyo biyagelin munaasabada saaka aan u joogno halkan waa biyagelintii dugsiga sare ee Aadan Bil School weeyaan marka waan u mahadnaqaynaa walaalaha Sweden hawl fiican ayay noo qabteen wadiga arkaya biyihii waa lagu intifaacsan karaa nololina waa biyihii maanta alxamdulillah waan uga mahadnaqaynaa talabaad solarkii way noo sameeyeen solarkiina waad arkaysiin siduu u shaqaynayo waad aragtaan oo anficii ugu horeeyay waan ka gaarnay kombiyuutaradii leerkii wax walba waan ku intifaacnay marka taa ayaan uga mahadnaqayaa talabaad xaggan barasaab ku-xigeenka gobolka Awdal wuxuuna soo gaarsiiyey deeq buugaag ka kooban oo hay'ad Mareykan ka soo qaaday waan ka gudoonay waan u mahadnaqnay qurbi joogta kalena waxaan leeyahay sida walaalahayo waan idin sugaynaa wixii naga qabiya deyrkii waa naga qabiyo deyrkii iskoolka waa naga qabiyo in library waa naga qabiyo marka inta kalena waxaan leenahay walaalayaal waan idin sugaynaa wax qabad inkaan niga fadhinaa ma garanaysaa ta kale gaar ahaan waxaan u mahadnaqaynaa walaalahayna qurbi joogta ee bilaabay dugsiga ee haddana keenay dhaqaajiyay keenayna kombiyuutarada labada kombiyuutar labada gabdhood ee walaalahayna Sahra Daahir iyo Dahabo Muumin iyagana waan u mahadnaqaynaa si fiican Ilaahay inaga jazaysiyo meeshaad ka soo bixiseen badal khayr qaba Allah inagu bedelo baan leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaah waxaan aad u mahadnaqayaa walaalaha iyaga halkan degan ee guddiyada kala duwan ee arrimaha bulshada ah ee lagu soo hagaajiyo lacagta deeqaha ah ee ka fuliya mashaariicda kala duwan ee adeega arrimaha bulshada ee degmada Xariirad sida caafimaadka waxbarashada biyaha leerka iyo wixii la mid ah aadna waxaan ugu dhiirigelinayaa inay markasta walaalaha diaspora degani
ay tixgelinta mudane hadda korba soo siiyeen in aaminaadda ay usii kordhiyaan maadaama ay ka soo baxeen kaalintii kaga aadanaa adeega ay arrimaha bulshada ee noocaas ay ka sameeyeen kuwaasoo runtii markaa dhinaca ka xuso wax alla wax mushaaro barnaamijyada caynkaasi ku qaataan aanay jirin aad baan u ammaanayaa runtii kaalinta ay ka buuxiyeen ummadooda ee kaga aadan sida ay ugu adeegayaan wax kastoo ay soo diraan walaalaha iyo diaspora ee ay usoo gudbiyaan ummadda adeegana sidaas ay u fuliyaan iyaga oo voluntarily barnaamijka caynkaasi ugu fulinaya dhammaantood waxaa lagu ducaynayaa dhammaantood barnaamijka caynkaasi ilaahay ka abaalmariyo sidoo kale walaalahayaha diaspora ku sugan ee barnaamijka deeqaha caynkaasi ummadooda ugu soo deeqayana in fi aakhiraba inuu ilaahay ka abaalmariyo ayaa dhammaantood ugu soo ducaynaya annaguna kaalinta aanu ka gudanayno barnaamijkaasi wax kasta oo ku aadan dowladdeeda inaanu kaalin ahaan dowladdeeda ka fulin doono wixii barnaamijka xilka iyo mas-uuliyadda ilaahay noo dhiibay iyo aynu noogu deeqay aan ka fulino oo inaanu buuxino ayaanu mar kasta ku dadaalaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wadayaal aynu qadar isha ku qabanno habsami u socodka waxbarasho ee dugsiga sare ee aadan bile obsiye oo aanu booqannay galaas ka mida Today's lesson is a family of elements in group 7. The halogens from elements on the right of periodic table. The first halogens, 5 in common, and they are fluorine, chlorine, bromine, and iodine. This is a form is known as halogens. The first 3 elements are very reactive at room temperature, going down in group their melting points and boiling points, and the density increases. Halogens are all non-metals. As a group of elements, they show tally in their physical property. Bromine is a liquid at room temperature, and iodine is a solid. Iodine turns almost directly into the fabric when it's heated. It's sublimate. This can be very dangerous in school laboratory, especially if the fabric come into the contact with broken skin or eggs. When using iodine, always wear safety spectacles. The other halogens. daawadayaal dugsiga sare ee aadan bile obsiye ayaa ay tayadiisu si xawliya kor ugu sii kacaysa marba marka ka dambaysa waxaana ka mid ah kororka tayadaasi dhir lagu beeray xayndaabka dugsiga sare ee aadan bile obsiye kaasoo igu deeqeen dhalinyaro da'doodu ay ka hooseyso 15 jir oo ka mid ah dhalinyarada magaalada xariirad daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudanow intaasi waxay noogu dhan barnaamijkii gaarka ah aynu maanta ku eegaynay deeqo kala duwan oo soo gaadhay dugsiga sare ee aadan bile secondary school ee magaalada xariirad inta aan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa anigoo maxamed cawaale daahira iyo bahdagala qayb gashayba waxaan idinkaga tegaynaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu